tiknoolajiyadii meel khatar ah ayay maraysaa oo maanta qofka xogtiisa iyo daatadiisa in gacanta lagu dhigo waa arrin aad u muhiim ah oo aad u qaaliya. daatada iyo xogtana maanta waxaa lagu magacaabaa dahabka ama shidaalka cusub. kooxaha hackeriska ah ama burcadda internetka ah ayaana aad ugu dadaala dadka xogtooda khaaska ah in ay mar uun gacanta ku dhigaan iyagoo uga faa'iideysta laba qaab: inay qofkii ku handadaan oo lacag madax furasho ah oo baada ay ka qaadaan, ama in ay kooxo kale kasii gataan xogtii khaaska ahayd ee muhiimka ahayd ee uu qofku lahaa. koox burcad ah ama hackeris ah ayaa maalin dhaweeto waxay jabsadeen xogta isbitaal Mareykanka ku yaala kaasoo lagu sameyn jiray qalliinada isqurxinta ah. isbitaalkan oo lagu magacaabo Hankanis and Sons ayaa xarumihiisu waxay ku kala yaaleen magaalooyinka Las Vegas iyo Henderson. isbitaalkan ayaa macaamiishiisii wuxuu u diray fariin u sheegaysa in xog ay lahaayeen kooxo burcad ah ama hackeris ay jabsadeen. xogta ugu khatarta badan ee laga jabsaday isbitaalkan waa sawirro qaaqaawan oo ay lahaayeen dumarkii lagu sameynayay qalliinada isqurxinta ahaa. arrinta waxaas oo dhan kasii khatar badan ayaa ah in hackeriskii ay sawirradii ay gabdhuhu qaaqaawanayeen ay u direen qoysaskii iyo asxaabtii gabdhaha, weliba waxay uga dhex direen isla emailkii gabdhaha, taas oo qoysaskii iyo asxaabtii gabdhuhu ay moodayaan gabdhuhu inay sawirradan ay qaaqaawan yihiin ay mid walba si kas ah ugu soo dirtay. sidoo kale hackerisku waxay sameeyeen sawirradii ay gabdhuhu qaaqaawanayeen online-ka ayay ku faafiyeen. hackeriska ayaa sidan u sameeyey ayaa la sheegay kadib markii isbitaalku uu diiday kana dhagaadeegay in uu bixiyo lacag madax furasho ah oo baad ah oo ay weydiisteen. sanadkii hore ayay ahayd markii koox hackerisa ay jabsadeen xogta isbitaal ku yaalay Faransiiska. waxay isbitaalka ku khasbeen in uu bixiyo lacag madax furasho ah oo gaaraysa $10 milyan. isbitaalkiina wuu diiday inuu lacagtaas madax furashada ah bixiyo. hackeriskii waxay sameeyeen inay dhammaan damiyaan systemkii isbitaalkiina uu awood u yeelan waayey inuu qayb ka mid ah bukaanadiisii ku jiray xitaa uu qalliin ku sameeyo. hackerisku maxay aad ugu beegsadaan waayadan dambe xarumaha caafimaadka waxay inta badan ka helayaan qofka xogtiisa oo dhammaystiran, sida xilligii uu dhashay, adreeskiisii iyo meesha saxda ah ee uu degan yahay, aqoonsigiisa gaarka ah. xogahan markii ay helaan waxay u sahlaysaa inay qofka bank accountigiisa iyo arrimihiisa kale ee muhiimka ah ay u sii dhacaan. dadka qaybtood ma doonayaan xanuunada khatarta ah ee ay qabaan in la ogaado, oo iyaga iyo dhakhtarkii ka helay keliya ayaa og. hackerisku xogta dadka markii ay jabsadaan waxay ka dhex ogaadaan xanuunadaas khatarta oo kale, deedna qofkii ayay waxay ku handadaan in uu lacag baad ah siiyo ama in ay bulshada la wadaagi doonaan xanuunkan khatarta ee uu qofku qabo. su'aal yar oo kooban: isbitaalada Soomaaliya ma isleedahay xogo ayaa u kaydsan? sidoo kale ma jiraan ayaa isleedahay dad u carbisan oo IT-ga ku takhasusay inay xogahaas bukaanka ilaaliyaan? haa mise maya?